Xawa Cabdi oo ku geeriyootay Muqdisho waa tuma Xawa Cabdi maxayse ahayd shaqadeeda taariikh kooban oo ku saabsan ayaa barnaamijkan oo kusoo qaadan doona Dr. Xawa Cabdi haddii ay tahay muuqaalkan markii kugu horeysay aad aragto waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe saarto channelka. Dr. Xawa Cabdi waxay ahayd Soomaali oo u ololeysay xuquuqda dadka qareen iyo dhakhtar oo aasaasaha xarunta caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka ee hay'adda Dr. Xawa Cabdi Foundation. Sanadkii 2010 waxaa loo magacaabay abaalmarinta Glomar ee haweeneyda sanadka. Sidoo kale waxay mar ka mid noqotay dadka loo soo magacaabay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize. Allah u naxariistay Dr. Xawa Cabdi Dhiblaawe ayaa ku geeriyootay magaalada Muqdisho. Waxa ay ahayd aasaasaha hay'ad ka shaqeysa arrimaha gargaarka. Xawa Cabdi ayaa dhashay 3 carruur oo mid ka mid ah uu dhintay sanadkii 2005. Waxa ay ku dhalatay magaalada Muqdisho 17 May sanadkii 1947. Waxbarashadeeda dugsiga hoose waxa ay ku qaadatay iskuulka Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho, halka dugsiga dhexe ay kaga baxday iskuulka Komarshaale. Iskuul dowladda Ruushka ee ka dhistay magaalada Muqdisho ayay sheegtay in wixii intaa ka dambeeyay ay ku beertay kadibna ay ka heshay deeq waxbarasho oo ay bixiyeen Midowgii Sofiyeeti oo ay ku tagtay dalka Ukraine waxayna ku maqnayd muddo 7 sano ah. Waxay dib ugu laabatay dalka sanadkii 1972 kadib waxa ay shaqo ka bilowday isbitaalka Digfeer. Guud ahaan xilligaas waxaa dalka ku yaraa haweenka bartay caafimaadka. Dr. Xawa Cabdi waxay si gaar ah ugu takhasustay cudurrada hooyada iyo dhallaanka. Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed qaybta caafimaadka ayay sidoo kale waxay ka noqotay bare. Xawa Cabdi oo dhakhtar ahayd muddo 48 sano ah ayaa caafimaadka baratay sanadkii 1971 xilligaasi oo dalka ka jirtay dowladdii dhexe. Waxa ay ka soo shaqeysay xarumo caafimaad oo ku yaala magaalada Muqdisho. Waxayna sheegtay in ardadii ay wax soo bartay ay haatan ka shaqeeyaan deegaanada Soomaalida iyo dalal badan oo caalamka ah. Abaalmarinada ay ku guuleysatay Dr. Xawa Cabdi 2017 waxa ay ka mid noqotay 10kii qof ee jaamacadda Harvard ay siisay shahaadada abaalmarinta ee Doctor of Laws. 2015 abaalmarinta horumarinta nabadda ee Booliisyo ayay ku guuleysatay. 2014 Xawa Cabdi waxa ay heshay biladda xorriyadda ee Roosevelt IV. Abaalmarintan oo lagu siiyay Middelburg ee Netherlands waxaa loogu yeeray Freedom from Want. 2012 Xawa Cabdi waxaa loo soo magacaabay abaalmarinta Nobel Peace Prize. 2012 waxay heshay abaalmarinta dumarka saameynta ku leh ee hay'adda WTW. Xawa Cabdi oo howlaha samafalka bulshada ku soo jirtay tan iyo bilowgii dagaalada sokeeye ee Soomaaliya ayaa xarun caafimaad oo ay ka faa'iideysteen hooyada iyo dhallaanka ka furtay wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. Waxa ay ka mid ahayd dumarkii ugu horeeyay ee soo bartay daaweynta cudurrada haweenka ee gynecologist. Waxay 1983 furtay isbitaal hal qol ka kooban si ay uga caawiso haweenka uurka leh. Markii uu bilowday dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya 1991 xarunteeda waxaa buux dhaafiyay dad ka cararay colaadda. Kadibna waxa ay bilowday hay'adda DAF si ay dadka uga caawiso. Hay'adda DAF waxa ay ka kooban tahay isbitaal, iskuul, xarunta quudinta. Waxay bixisaa aqoon, daryeel caafimaad, hooy iyo tababar la siiyo dad barakacay oo u badan haween iyo carruur. Dadkii ka hadlay geerideeda waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo sheegay in Dr. Xawa Cabdi lagu xasuusan doono kaalintii ay ka geysatay badbaadada ummadeena gaar ahaan kuwa nugul. Sidoo kale hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa Xawa Cabdi ku tilmaamay daljir dahsoona. Xawa Cabdi xarunteeda caafimaad waxaa ku booqday madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush xilligii ciidamada Mareykanka ay ku sugnaayeen Soomaaliya bilowgii 1990. Intaas ayaynu nooga eg tahay taariikhdii koobneed ee Dr. Xawa Cabdi. Waxaynu leenahay Ilaahay jannadii firdowso ha ka waraabiyo. Aamiin aamiin. Sidaas iyo muuqaal dambe oo xiiso leh.